waxay ku leedahay waxaan doonayaa inay la ciyaartidaada iyagu heshay wiilkan laakiin waxa uu ku leeyahay waxaan leeyahay saaxiib intaas markii uu yidhi kadib waxaa dhacay sidatan kani waa filimkeena maanta saaxiibayaal kusoo dhawaada halkan ayuu ka bilaabanayaa filimkeena maanta wiilkan iyo aabihiis ayaa halkan saaran waxaa lagu magacaabaa wiilka Barnett aabihiis ayay aad u wada qoslayaan farxad ayay ku jiraan aabihii waxa uu la soo baxay sigaar si uu shito laakiin markiiba wiilkii waxa uu arkayaa ninkan meeshan taagan isla markiiba gaarigii ayuu kala jeedinayaa laakiin markiiba waxay galayaan shil aabihiina halkaas ayuu ku dhintay 6 bilood kadib saaxiibayaal wiilkan oo lagu magacaabo Barnett waxa uu yimi iskoolkiisii isagoo noloshiisii hore kusoo laabtay maalin maalmaha kamid ah isagoo iskoolka jooga ayuu waqti la qaadanaya saaxiibkii Jimmy kadibna saaxiibkii ayaa ka tagaya isla markiiba gabadhan ayaa u imaanaysa waxaan lagu magacaabaa Lola markiiba Lola waxay ku leedahay waxaan doonayaa inay la ciyaartid waa ay ka heshay laakiin waxa uu ku leeyahay maya waxaan leeyahay saaxiib waa uuna isaga tagaya laakiin Lola markiiba aadayay u xanaaqday Barnett waa uu kasoo tagay waxa uuna yimi banaanka saaxiibtii ayaa halkan taagan kadibna saaxiibtii ayay soo raacayaan iskoolka ayay kasoo kaxaynaysaa saaxiibtii maadaama laga mamnuucay gaari dambe inuu kaxeeyo waxa uuna xasuusanayaa shilkii uu aabihii geliyey gurigiisa ayay keentay saaxiibtii oo lagu magacaabo Holly kadibna waa uu macasalaamaynayaa gudaha ayuu guriga usoo galay Barnett kadibna qolkiisa ayuu soo dhexgalayaa isagoo muusig daaranaya waxa uu imaanaysa hooyadii waxay ku leedahay maxay tahay gabadhii kusoo kaxaysay way canaanaysaa waxayna ku leedahay soo kuma dhihin taxi soo qaado aabaha ayaa ku dhintay shil gaari markiiba uu xanaaqaya waanu iskaga soo tegayaa gurigii hooyadii eygiisa ayuu soo kaxaystay waxa uuna imaanayaa meeshan banaanka halkan ayuu doonayaa waqti inuu ku qaato isaga iyo eygiisa cabaar kadib saaxiibayaal waxa dhacay eygiisa ayaa soo ordaya kadibna waa uu qaylinaya laakiin Barnett ma fahansana waxa uu eygan la qaylinayo hooyadii ayaa soo wacaysa markiiba laakiin saaxiibayaal nin ayaa gadaashiisa dama soo istaagay kadibna earphone-ka isagoo iska saaraya ayuu afduubtay sanka iyo afka ayuu kaga qabtay mara sumaysan ilaa uu markii dama suuxay hooyadiina waxay rabtay inay raali geliso ugu dambeyn saaxiibayaal waxaa arkaynaa ninkan oo jiidanaya Barnett kadibna gaarigiisa ayuu soo saartay waa uuna la soo dhaqaaqay eygiisii ordaya ayaa gurigii dib ugu soo laabtay kadibna hooyadii Carol waxay soo raacday eygiisii uu soo tusay meeshii ugu dambeysay uu joogo laakiin way ka weynaysaa Carol waxay imaanaysaa guriga saaxiibtii si ay wiilkeeda u weydiiso laakiin markiiba waxay ku leedahay maan arag Hollyna aad ayay u walwalsan tahay maadaama saaxiibkeed maqan yahay eygiisina uu dhaawac ku yaalo halkan saaxiibayaal waxaa arkaynaa Lola iyo aabaheed oo halkan taagan aabaheed ayaa soo afduubtay kadibna waxa uu keenay gurigii Lola aabaheed ayaa guriga ugu soo galaya kadibna waxa uu keenayaa surprise waana dharkii aadka u jecleyd waa ay soo ordaysaa waxayna qaadanaysaa hadiyada aabaheed iyadoo aabaheed laabta ka gashay aadna ugu mahadcelisay markiiba waxay bilaabaysaa inay dharkii aabaheed uu keenay fiiriso dharkii ayay gashanaysaa saaxiibayaal ilaa markii dambe aabaheed waa aad uga farxay waxa uuna ku leeyahay aad ayaa ugu qurux badan tahay kursigan waxa ku xiran Barnett markiiba dharkii iyadoo qabta ayay u imaanaysaa meel kastana waxay kaga xirtay xarig buufina ayay dhulkii daadisay waxayna ku jirtaa xaflad halka aabaheed uu aad ugu faraxsan yahay waxa uu sameynaya gabadhiisa Lola markiiba waxay soo qaadanaysaa silingaan kadibna waxay kusoo nuugaysaa suntan waxayna doonaysaa inay ku durto Barnett aabaheedna waa uu qabanaya ilaa markii dambe irbadii dhuunta ka gelisay waana irbad jirkiisa oo dhan ka qaadaysa tabarta si uusan uga baxsan isla markiiba aabaheed kaamirada ayuu soo qaaday waxa uuna doonayaa inuu gabadhiisa sawir kaga qaado hooyadeeda xanuunsan ayuu agdhigayaa waxayna ku jiraan xaflad aabaheedna waxa uu ka qaadayaa gabadhiisa iyo sidoo kale naagtiisiiba sawir iyagoo ku ciyaaraya Barnett laftan jikinka ayay soo qaadaysaa si ay khasab ugu siiso laakiin waa uu diidayaa way ku ciyaaraysaa waxayna doonaysaa inay wax kasta ka samaysato gabadhana waa ay xanuunsan tahay waxa qabtaa xanuunka loo yaqaano psycho markii uu diiday kadib aabaheed ayaa waxa uu soo qaadanaya dubahan kadibna waa uu tusaya waxa uuna ku leeyahay ciqaab kale ayaa mari doontaa haddii aad diidid warka gabadhaydu ay sheegayso isla markiiba xariga ayuu iska furay Barnett kadibna isagoo boodboodaya ayuu ka baxay qolkii ilbaabkii guriga ayuu taagan yahay waa uuna boodboodaya lugaha ayuu ka xiran yahay laakiin markiiba odayga ayaa ka daymaanaya isagoo afartan dhinac ka fiirinaya Barnettna waxa uu galay gaariga hoostiisa si uu halkan ugu dhunto laakiin markiiba waa uu fashilmay isla markiiba gaariga ayuu kusoo baxsanaya odaygii dhalay gabadhan kadibna waa uu ka cararaya ilaa markii dambe uu geedkan ka koray tooshkan ayay ku ifinayaan ugu dambeynna dhagax ayay kaga soo rogayaan geedka waa uu adkaysan leeyahay dhagaxa ku dhacaya Barnett ilaa markii dambe saaxiibayaal uu dhulka kusoo dhacay markiiba waxay soo geliyeen guriga kadibna waxay ku xirxirayaan kursigiisii ciqaab ayay marsinayaan maadaama uu isku dayay inuu baxsado odaygii musmaarkan ayuu soo qaadanaya kadibna waxa uu ku qaraacayaa dube waana ciqaabta intii uu baxsaday aad ayuu u qaylinayaa maadaama jirkiisii qaybo kamid ah ay dhiig ka socdaan waa ay ku raaxaysanaysaa dhawaaqa kasoo baxaya ugu dambeyn waa u imaanaysaa waxayna ku leedahay raali noqo haddii aad khalad noocan oo kale aad gashid waxaa kuu damayn doonta ciqaab ka darantan oo kale hooyadiis aad ayay u murugaysan tahay wiilkeedina laba cisho maysan arag Holly ayaa la joogtaa booliskii iyo dadkii oo dhan waa ay ogeysiiyeen meel kastana waxaa laga raadinayaa Barnett ugu dambeyn ninkii booliska ayaa dib
dib ugu soo laabtay kadibna waxa uu tusayaa hooyadii teleefonkiisii iyo sidoo kale xargihii dhagaha. Lola halkan ayay la soo baxday buug waxayna tusinaysaa dadkii ay dhibaataysay oo dhan waxayna ku leedahay qof kastoo anigay diidaa waxaan marsiiyaa ciqaab. dad badan oo la waayay ayay tusaysaa waxayna ku leedahay aniga ayaa dilay. mar kale waxay marinaysaa ciqaab aad u daran. xabadkiisi waxa ay ku sawirtay loofkan kadibna cusba ayay ku daadinayaan. mar kale ayay cusbadii ka furaysaa daboolka waa ayna ku daadinaysaa. aad ayuu u qaynlaya iyadoo aan wejigeeda wax xabsiya ka muuqan. farxad ayay ku dareemaysaa. waa uu ooyaya markii cusbadii lagu daadiyey. kadibna iyada iyo aabaheed halkan ayay ku jaasayaan. markiiba wuxuu arkayaa siliskiisii oo halkan yaala. ninkii booliiska ah waxa uu imaanayaa gabadhiisii waxa uuna ku leeyahay waxa uuna dhalay Barnard saaxiibadii. halkan ayay joogtaa way iska ooyeysaa. isla markiiba waxa uu soo qaatay sakiintii waxa uuna iska furayaa xargihii. intii ay mashquulsan yihiin ayuu isku dayayaa inuu xargii iska furo ilaa markii dambe odaygii uu soo qaatay birta derbiyada lagu dalooliyo. kadibna gadaal ayuu kasoo maraya waxa uu qabanayaa dhuunta. Lolana waxa ay doonaysaa inay sujuudda ka dalooliso. markiiba way usoo dhaweynaysaa mishinkii. aad ayuu u qaylinayaa laakiin qayladiisa waa raaxo. markiiba waxay ka daloolinaysaa sujuudda. dhiiggii kasoo baxayna waxa uu ka gelayaa indhaha. markiiba waa ay fiirinayaan wayna ku raaxaysanayaan balse xanuunkii darnaa awgeed markiiba xargii ayuu iska soo furay waxa uuna ku dhufanayaa feer odaygii ilaa uu markii dambe soo qaatay mishinkii madaxa looga dalooliyey. isla markiiba mindi ayuu la soo baxayaa waxa uuna si fool xun u dilayaa odaygii isagoo dhuunta ka geliyey mindi dhowr jeerna ku celceliyey. waa ay kusoo boodaysaa waxayna ka koraysaa xagga sare laakiin markiiba dhulka ayuu ku dhufanayaa waa uuna qaraacayaa ilaa ay ka suuxday. aad ayuu u caraysan yahay ilaa uu markii dambe ilbaabkan furay kadibna uu ku tuuray tandhalkan hoose. saaxiibayaal Lola iyo aabaheed meeshan waxa ay geliyeen dad badan oo sidan oo kale ay u dhibaateeyeen. boyfriendadii oo dhan waxa ay ku gurtay halkan waxayna ka daloolisay maskaxda. dhammaantoodna waxa ay noqdeen horor. halkan ayay ku jiraan. markiiba waxa uu tuurayaa hilibka aabaheed. waa uu isku naxayaa markuu arko dadkan shakligooda iyo siday isu bedeleen laakiin markiiba gadaal ayay kasoo maraysaa ilaa markii dambe isagii ku tuurtay godka. laakiin horarkii waxa uu ku mashquulsan yahay meydka aabaheed. way iska ooyeysaa markay aragta aabaheed oo ay cunayaan dadkii ay dhibaataysay ilaa markii dambe Barnard ay ku dabooshay. Lola waa ay soo dhaqaaqaysaa waxayna u imaanaysaa hooyadeed ay dhibaataysay. dhowr sano ka horna ay madaxa ka daloolisay ilaa markii dambe ay dhammaystirtay waxayna ku ceejisay barkinta. xanaaq dartii ayay nafta u dhaafisay. ugu dambeyn saaxiibayaal ninkii booliiska ayaa waxa uu imaanayaa gurigii Lola kadibna waxa uu daaqada ka arkaya dhiigan faraha badan ee halkan daadsan ilaa uu markii dambe guriga soo galay. halka Barnard uu qaraacaya xagga hoose laakiin markiiba ninkii booliiska ayaa ka furaya waxa uuna arkayaa Barnard oo halkan ku jira laakiin Barnard waxa uu arkay gabadhii oo gadaashiisa taagan ilaa markii dambe ay madaxa ku dhufatay kuna tuurtay godka. ninkii askariga ahana waa uu dhintay waxa uuna kusoo dhacay godka. Barnard markiiba waa ay soo dhaqaaqaysaa waxayna soo baxaysaa banaanka iyadoo doonaysa inay soo disho hooyadii iyo sidoo kale saaxiibtii balse wadadan waxaa maraysa saaxiibtii. kadibna hareeraha ayay fiirinaysaa ilaa markii dambe ay gaarigii istaajisay. kadibna waxay arkaysaa gabadhii iyadoo aad u yaabaan waa ay fiirinaysaa markiiba laakiin waxay arkaysaa inay wadato siriska saaxiibkeed. isla markiiba gaariga ayay ugu soo gelaysaa waxayna doonaysaa inay disho. daaqadii ayay iska furaysaa dhulka ayay iskula soo dhacayaan ilaa markii dambe saaxiibayaal godkii kasoo baxay Barnard. kadibna gaarigii booliiska ayuu soo qaatay isagoo ordaya waxauna doonayaa inuu saaxiibtii badbaadiyo. halka saaxiibtii ay halkan ordaysa waxayna ka cararaysaa Lola oo mindi ku baxsanaysa. isla markiiba gaarigii ayuu ku dhufanayaa waxa uuna jiirsiiyey gaariga. markiiba saaxiibtii ayaa u imaanaysa waa ayna la yaabantahay xaaladda saaxiibkeedu ku sugan yahay laakiin markiiba daaqada dambe ayay ka arkayaan inay weli nooshahay. halkan ayay soo gurguranaysaa. markiiba daaqada ayuu ka fiirinaya waxa uuna la yaaban yahay gabadhan ilaa markii dambe uu gaarigii gadaal ugu soo celiyey. kadibna waxa uu ka marsiinayaa madaxa. gaarigiisa ayuu soo qaatay kadibna waxa uu dib ugu soo laabanayaa gurigiisii isagoo hooyadii laabta geliyey. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabayna. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. fadlan haddii aad muuqaalka ka heshay like saar si uu meel fog u gaaro. channelkan subscribe noo dheh.